الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، صحيحين كوحا كويمد بخاري ومسلم أي ورينيان أنس بن مالك بيك ورينيان خادمك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحيري النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاويمد من ربادية ودتك بادية هتجا كمذا قيامته وحكوي ديي وحنا كويلي قيامته وكورما كورما دعيسا النبي صلى الله عليه وسلم ماشوا في لهي أعرابي قاسي إنه كويل هذا التاريخ هبل بيد عيسى وقت هبل بيد عيسى سؤال بك جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأن السؤال شؤوي دي النبي قال إنك أعرابي يا صحابي سؤال شؤو النبي قوي دي بوحي تاهي سؤال أسن النبي محمد جواب تيدا هينين أو أسن قرنين صلوات ربي وسلامه عليه علوم تقار waxaa jira ilaahay uu gooni la noqday oo malaa'iktiisana uusan daalacsiinin anbiyada iyo rusushana uusan waxba uga sheegin oo isaga khaas ku ah culumtaana waxaa ka mid ah qiyaamada iyo goortay dhacayso ilaahay wuxuu ugu talagalay adduunkan markuu gabagabeynayo inay si kada ah qiyaamadu ugu timaadoon ku talagal lahayn oo aysan ku sii tashanin waxbana ayna ka ogeyn saas daraadeed baa qur-aanka kariimka allah tabaaraka wa tacaala meelo badan ku baraarujiyey nebi maxamed oo qiyaamaday wax kaa weydiinayaan saacadday ku weydiinayaan maxaad ka garanaysaa baa laga cilmigeedu alluu ku egyahay cilmigeedu alla agtiisuu ahaaday الله أمبا فايدة يا وقت يقول ربو أدقنا وحبك قرن ميسد ملك الجبريل بان نبي قال نبي من صلى الله عليه وآله وسلم أسوأ صحابتي سلفر يا ننسفر الصحتاب ويسوسو إكيسيي سؤال دور النبي قويدي صحابته ومقل يودقي سنة يوحى كم إذا متى الساعة أخبرني عن الساعة قيامة بل إيقور محمد وقور ما يدعي ساعة النبي وحكوته صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بعلم من السائل كل ويدين يو أنيق نبي محمد كي ويدين يو جبريل أو جمحه قال السنين هذه أنيق اسكميل بين نوجك تاع علمي هذه أقونته وأوصي منه مركا ما قرن يا نبي صلى الله عليه وسلم أرنو هي علمي هذا الله شيء معها وحي قال له سودتشي كمدنا لكن النبي صلوات ربي وسلام عليه سؤاشا شد كيدي يسيدي كوهبونيد يسيدي قرطو أهيد والنبي يقول لي حيي وسؤال بكعلي نيكي أعرابك أها وحكويلي محاد الديار ستي ماذا أعددت لها محاد قلت لك شيء الديار ستوك الديار ست يعني كل وإيمان وقت بيلاد هوين إيمان أدون كان يوجب جواب يوون الضمان حسابي محكمة إلهنا واللوجود بدونه وي إيمان قصب لكن سؤال شو قرما مئه سؤال شو كوجها بون إن أدوي دي سواح ويان محاد الديار ستي وكود ديار ست لأن قيامة أتسوي سي أدون كميد اللوجة بجبين يوين وحاب كاجسو كيا أديك هدات لما تو قيامة هذه وابد عظيمة ما حاب كل لابنبا ساس ردد وصحيح البخاري وحكوي من حديث عائشة وحيتري من ربادية وقل قلف سن ربادية ودرس كداعده دبع سنانتنا انت بدن ما يقانان هذا الكودن واسكا ادغه مواقفتودن واسكا ادغتay niman adago qalafsan oo reebaadiye aba nabiga waxay weydiiyeen qiyaamadu waa goorma nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu fiiriyay intoodii meesha toogtay ka ugu da'yar
markaasuu nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam kani hadduu noolaado oo cimriyo waayo duqnimo gaadhi maayo ama duqnimadu haleeli mayso ilaa mid kastoo idinka mida qiyaamadiisu ay ku dhacdo maxaa laga wadaa geeridii waayo sidaas daraaddeed man maata faqad qaamat qiyaamatuhu ruuxii dhintay qiyaamadiisii waa dhacday sababta waxa weeye xisaabtaadii iyo abaalmarintaadii wax ka mida waxayba kuu bilaabanba adigoo weli jidhkaaga aysan naftu ka dhammaaninba in lagu qaado qabri lagu geeyo ha sugin halkaa inay wax kuugu bilaabanayaan keliya ma aha nafta qaadidda lagaa qaadayaaba lagugu ciqaabi halkaasaaba cadaabku ka bilaabanaya bishaarada cadaabka lagugu bishaaraynayo ama janno iyo ilaahay naxariistiisa lagugu bishaaraynayo waxay ka bilaabanaysaaba jidhkaagoo weli naftii ay qayb ka mida ku jirto halkaa haddii lagaa kaxeeyo qabriga lagu geeyana ama waa god naareed ama waa beer janno marka qiyaamo dambe inay dhacdo qiyaamo dambe inay dhacdo su-aasheeda maxaabaad adiga ka sugiba haddaabad dhimato khalaas hawshaadii waa kuu bilaabatay maa acdadta laha maxaad diyaarsatay waa midda rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka inugu amray yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat liqad war dadka ilaahay yaqaanee ilaahay rumaysanow alla ka baqa naf walbana ha fiiriso waxay berri u horumarsatay adduunyadu waa maanta berrina waa aakharo waxaad u horumarsatay fiiri maxaa laga wadaa u fiirso bal khasnadaada ku noqo oo noloshaada ku noqo oo taariikhdaada ku noqo oo waxaad xisaabisaa maxaa khasnada kuugu jira maxaa kuu yaalla caawa haddii lagugu soo guuro ama haddaba qalaf kaa tidhaahdo maxaad la hortegi rabbigaa tabaaraka wa tacaala bal isweydii maa acdadta laha hor maxaad haysaa su-aashaasaa muhima inaad isweydiisuu nebigu uu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana su-aasha ay muhimka tahay xilli walbiyo xaalad walba inay ruuxa hortiisa taagan tahay war maxaa kuu diyaarsan war maxaad haysaa maxaad hormarsatay maxaad geysatay maxaa khasnada ku jira xaalkaagu see weeye waxaa ka soo baxaya markaad isweydiisatood isla xisaabtantood gooni isula fadhiisanto xaalkaaga aad fatashto waxaa kuu soo baxaya laba mid inaad tahay addoon dadaalayoo fiican iyo inaad tahay addoon kharribanoo jidka ka baxay oo naf iyo shaydaan duufsadeen haddaad ka horo tahay oo dadaalaysood wanaagsan tahay oo wax fiican hayso waxaa kuu taalla hayscajabinin intan aad samaysay iyo dadaalkan aad samaysay sii laban laab oo mu'minku cibaado kama dhargee ilaa geeridu kuu imaanayso sii siyaadi waxaad hayso waxaa keenayaa ma ogid intan in lagaa aqbalay waxba yayna ku cajabinin ma ogid inaad janno ku geli doonto waxba yaysa ku cajabinin ma ogid marka miisaanka la saaro camalkaaga wanaagsan ee inta yarteed la cajabsantahay aad buunbuuninayso iyo dembiyadaada garan maysid kafadu dhankay u dhici doonto inta aad samaysay cimrigaagoo dhan hal nicmo ilaahay nicamkiisa uma dhiganto nicmatulbasar ishaa ilaahay ku siiyey iyo nicmadaad ku qabto acmaashaadu uma dhiganto iska badaa nicmo kale iska daaya sidaas daraaddeed haddaad addoon wanaagsan oo dadaalaya tahay dadaalka sii laban laab camalkaaguna yuusan ku cajabinin haddaad tahay addoon la duufsaday oo naf iyo shaydaan duufsadeen oo si wax ka yihiinna isdaba qabo inta aan wakhtigu ku dhaafin oo waa intee ma garanaysid daqiiqadaasi aad neefsanayso wixii ka dambeeya ma hubtid waxaad ku dambayn doonto daqiiqada aad neefsanayso wixii ka dambeeya gacantaada kuma jirto mana hubtid sidaas daraaddeed isdaba qabo intuusan wakhtigu ku dhaafinoo soo noqo isna hagaaji oo khasnada waxa ku jira diyaari waxaad ilaahay kula kulmi lahay tabaaraka wa tacaala
nebigu su-aashaa markuu weydiiyey war maxaa kuu diyaarsanood ilaahay kula kulmirtaa qiyaamada u diyaarisay ninkii saxaabigaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah waxba ma diyaarsanin waxba uma diyaarsanin waa riwaayad kale wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahay oo soom badan iyo salaad badan iyo sadaqo badan ma hayo wax badan oo ii diyaarsani ma jiro laakiin ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay hal qodob baan hayaa halkaa qodobna waxa weeye allah baan jeclahay tabaaraka wa tacaala rasuulkiisana waan jeclahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin intaa wixii ka soo hadhay wax badan oo kale iima diyaarsana mana hayo waa masaladan hadda ka hadlaynayoo ninku waa saxaabi ardadii nebi maxamed buu ka mid yahay keliya waxaan wax loo dhigaba lahayn inuu ardadii nebi maxamed ka mid yahoo saxaabi yahay baan wax loo dhigaba lahayn intaasaaba camal kasta ka muhiimsan bacda altawxiidi waaliimaan inuu yahay saxaabadii nebiga ka mid yahay sal alla alay wasalam laakiin waxaasoo dhan waa la yaryahay lama weyna wax waa sameeyey laakiin lama weyna waana dabeecadda dadka mu'miniinta la doonayo mu'minku waa dadaalaa waana baqaa munaafiquna waa isdhigtaa maxba ma sameeyo ma dadaalo haddana maca daalika ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa aamin buu ka yahay saasaa lagu kala duwan yahay mu'minku waa baqaa waana dadaalaa waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun way dadaalayaan waxbay bixinayaan acmaashii wanaagsaneed bay la samaynayaan haddana maca daalika qalbigooda baqdin baa ka buuxda rasuulka ilaahi wax badan ma hayo laakiin waxaan hayaa ilaahi iyo rasuulkiisaan jeclahay nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam qaacido guud buu bixiyey qaanuun guud buu nebigu bixiyey adigu maalinta qiyaamada cidda aad jeceshahay baad la meel tahay adduunka dadkaad ku jeceshahay ayaad aakhare la meel tahay haddaad rasuulka ilaahay jeceshahay ood saxaabadiisii jeceshahay ood akhyaarta jeceshahay ood ahlul iimaanka jeceshahay ood muwaxidiinta jeceshahay oo dadka ilaahay ku xidhan aad jeceshahay kuwaasaad berri la meel tahay xataa camalkaaguba yuusan gaadhin inta xun haddaad jeceshahay oo qalbigaagu la jiro gaal iyo mulxid iyo munaafiq iyo faasiq kuwaa haddaad jeceshahayna kuwaad jeceshahay baad berri la meel tahay xataa camalkoodoo kaleba ha samaynin miisaankaasuu nebigu bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu leeyahay anas sida aan ugu faraxnay nebiga hadalkiisa ah ciddaad jeceshahay baad la meel tahay sidaan ugu faraxnay wax kaloon ugu faraxnay maba jiro buuri maxaa yeele wuxuu idhi anigu waxaan jeclahay nebi maxamed sal alla alay wasalam waxaan jeclahay saaxiibkii abubakar waxaan jeclahay saaxiibkii cumar waxaanan rajaynayaa inaan kuwaa berri jacaylka aan jeclahay sababtiisa inaan la meel noqon doono xataa camalkayguba yuusan gaadhin sidaas daraaddeed almar'u maca man axabba yaad jeceshahay isweydii aday kuu noqonaysaa marka yaad la tol tahay yaad la xisbi tahay yaad la socotaa yaad la jirtaa yuu qalbigaagu taageersan yahay yaad jeceshahay kuwa agtooda iska day gaalo iyo munaafiqiin iyo mulxidiin baan jeclahay mu'miniinta inaan la meel noqdana aakharo waan rabaa way isdiiday yaa anta maca man axbabta ciddaad jeceshahay baad la meel tahay ee yaad jeceshahay adigu isweydii jacaylku waa camal qalbi ah waa camal qalbiga ah qalbigaa sameeya wax jeclaadoo wax naca laakiin haddana maca daalika ruuxu wuxuu jecel yahay noloshiisaa laga arkaa afkiisa iyo adinkiisaa muujiya leanna waxay quluubtu qariso waxaa turjuma xubnaha sidaas daraaddeed ayaa jacaylka ilaahayee la sheeganayo iyo jacaylka nebigaee la sheeganayo
wuxuu u kala baxaa laba mid been ah oo waxba ka jirin oo sheegad ah iyo mid run oo dhab ah maxaa lagu kala gartaa waxaa lagu kala gartaa ilaahay baa cadeeyay الحسن بن أبي الحسن البصري تابعي جليل كان وحو ليه قل يا وحي الشيكتين ضدبا وحي الشيكتين إني إلهي تعليهين الله إن تعلنا هاي بيده تذكر واسك الشيكتا شيك شدوا بدنتا هاي تذكر بني آدم وحي له وسن كعاجزين وعد والبكاري كرتوحا كم بدهن وحسك الشيكتو لكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يعطى الناس بدعواهم dadku waxay sheegtaan hadii loo rumayn lahayo ruux walba wuxuu sheegto la siin lahaa dad baa waxay sheegan lahaayeen dad kale xoolahooda iyo dhiigooda iska sheegan lahaayeen laakiin cidii wax sheegata waa in cadeyn la weydiiyo adeer cadeyn iyo marxaati keen inaad ilaahay jeceshood rasuulkiisa jeceshahay maxaa cadeyn ah maxaa marxaati ah maxaa daliil ah ma beenaala tahay mise runlow baa tahay wuxuu yiri qola waxay sheegteen in ilaahay jecel yihiin markaas ilaahay wuxuu ku imtixaanay aayadan qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni nabi maxamed waxaad ku tiraahdaa kuwa sheeganaya in ilaahay jecel yihiin haddaad ilaahay jeceshihiin oo jacaylka alle dhab idinka yahuusan been ahayn aniga nabi maxamed isoo raaca allah idin jeclaan sida ku dheh macnaheedu waxay tahay haddii aad jidkii nabi maxamed hayso صلوات ربي وسلامه عليه سنتي سير رعسنتاي شرعي سير رعسنتاي اخلاقي سير رعسنتاي امركي سي نهيي سي وحو كتغي اد الالينيسو شعيلك ودب عدينتنا وتا عدينتو طريقه اد هيسوي مرخاتيغي وكا هذا طريق النبي محمد هيني صلوات ربي وسلامه عليه weligaaba ku wardi ilaahay baan jeclahay nabi maxamed baan jeclahay caawadan ku wardi waxba ka socon maayaan haddaad ilaahay jeceshihiin dariiqa nabi maxamed soo qaada ilaahay baa idin jeclaanaya isweydii marka maxaad ka haysaa sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam dariiqa kaliya waa dariiqa aan ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa iyo maxabbadiisa u marno waa hal dariiq labaad ma jiro ruuxi isku daya dariiq kale iyo laalaab kale iyo meelo kale inuu ka soo galo ilaahay jacaylkiisa iyo jannadiisa iyo ridihiisa maya jid kale oo dhan waa xidhan yahay hal jid baa inoo furan oo ah inaad nabi maxamed jidkiisa marto taacado amarkiisa qaadato waajibaadka raacdo shariicadiisa qaado ad raacdo taasa ku furan jid kale ma jiro saas daraadeed baa nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى روحي أنيقا يأطيعو أمر كيقا يلو شرعي كيقا راعة نكاسي جندي واقلي روحي أمر كيقا تشبيا وطريقا يقا قرم مرنا جندي واديدي وجنيا ديدي إن أمر كنبي محمد ديدو بمعنى جنة ديد واي طريقي سينا قرم مرتو جنة ديد واي شرعي جيسا إنا تشبيسو جنة ديد واي سيداس درادة هل كا طريق با إنو فرن الله جعلو ورسول كيسا جعلو وإنت جيدك هيسا جعلو وأهل التوحيد كجعلو وصحابة النبي محمد كبلو وإن الله أنت إلهي كحرنا طريقي سحيسا السنة النبي هيسا جعلو وإيجا لجر kuwaasaad maalinta qiyaamada la meel noqon doontaa haddii aad ka run sheegto xataa camalkaagu yuusan gaadhinba aad iska tabardaraatid galab aad ahaatid laakiin jacaylkaagu meeshuu jiro ayaad maalinta qiyaamada taallaa ama aad meeshaadii hoygaadu yahay saas daraaddeed aynu ku dadaallo war maxaa inoo diyaarsan aan ku dadaallo taacada iyo camalka saalixa ah waqtigu waa kooban yahay fursad badanna inama hortaalo ma haysano aan ku dadaalno ilaahay iyo rasuulkiisa inaynu jeclaano jacaylkaana aan camal u bedelo taasaa badbaadadu ku jirtaa sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursaliin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'anil sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل هذا الدين يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.